soo dhawaada daawadayaal meel kastood adduunka daafiisa ka joogtaan waa barnaamijkeennii hindisi halabuur barnaamijka hindisi halabuur alaaba waxaanu idinku soo marti qaadnaa dadka suugaanleyda amaba suugaanta markaasi ehelka waa toddobaadkan barnaamijkeenna waxaa marti kuwa abwaan weyn waa abwaan Axmed Colaad Qorone oo ka mid ah abwaanada waaweyn ee suugaantiisu ay gaadhay ummadda Soomaaliyeed aynu eegno Axmed iyo waraysi suugaaneedkiisina dhex maray bilabwan waxaad ka warantaa imika dhalinyaradan faraha badan leh ee suugaanta aad ka curisa waxa laga yaabaa inaan abwaanadii hore aan garanaynba ama magacoodii ama suugaan abwaan hore laha aanu garanayn dabeed qofkii koornay abwaan baanay oo waxna tirinayo bal ka waran dareenka caynkaas dhalinyarada kulli baan uga taageeraya dhalinyaradu way iska tababaran doonaan wixii wax uga dhiman yihiin kulli waa taageeraya kulli waxaan ku xiran qofka dadaalkiisa ma ku xiran tahay inuu abunada barto suugaanta barto dhismaheeda barto qaabkeeda barto qiimaheeda barto isaga ku xiran tahay dadaal sameeyo laakiin waa taageerina dhalinyarada aad baan u taageerinaa waxa leenahay dadaala suugaantana turxaanta ka ilaaliya qabyaaladna iska ilaaliya ummad qaran noqdo hankiinu ha sareeyo fikir yar oo hoose oo gobolaysi iyo qabiilaysi iyo wax inkaasa meel lagu ma gaaro dhaxalna ma reebto marka hankiina kor u qaada dadaalna intaasan leeyahay waxa jira de kulli gabayo far badan baa loo ka gayoonmayno waxa jira gabay aad ii sheegayso gooli baad la yiraahdo bal marka dad far badan baa kulli ereygan gooli baad aan garanayno isagana tafsiir gaar ah ka bixin doonta dareenkii gabaygaas ku dhashay wad noo sheegi doonta ka bacdina gabayga marka ay qaafiyadiisii badna la wadaag bismillaah alxamdulillaah horta gabayga gooli baad baa la yiraahdaa bari horana mar baan dhigay baraha bulshada isagoo qoraal ah erigana barigaas aad baa la isoo weydiiyay gooli baad waa u macneeyay haddii aan sii xoojiyay makana gooli baad waxa weeyaan shiish barashada marka la raggu shiish baranayo ee intay shay meel soo dhigtaan qoryaha rasaasta gashadana nuuro markiisa uu tooganayo waana lagu sharatami jiray si loo kala shiish badan yahay marka eriga gooli baad asalkiisu waa noocaas dabridka ciidamadu sameeyaan isla gooli baad weeye marka eriga macnihiisu waa noocaas gabayga marka malaamika muddo qiyaasaha ilaa 2 sanadood 3 sanadood meelahaas ka horbo ahaa waa gabay sarbeeba waxa laga yaabaa inaanay dad badan fahmin sarbeebta hadalada qafilan imika waa inagu yartahay fahmigoodu laakiin waliba wuxuu ka fahmi karo haw furfurto way gabayna iska bilaabanayna indhaweydba waataanan gudan gaydhimaansada indhaweydba waataanan gudan gaydhimaansada hadba anigoo gamashiyu gabi ka muuqdaaye waa gooli baadh faallada golaha taallaa ee aan gubsheeyo caawana addoon gaafa bixi waaye gubsheeyo caawana addoon gaafa bixi waaye gunti midha ku jira looma qubo qaar ku rarangeede iyadoon garaadii dhinnayn gugunay buuxoo waxaan ahay garh mooye nimaan gawsu soo bixine waxaan ahay garh mooye nimaan gawsu soo bixine garbo laga dullaamiyo jarbay gogoshu ii taalle god waraabe iyo baan hurdaa goob dugaag badane galabtaan dhashiyo maanta oon guudka kaci ruubay gorayaan hadhuubka u cushaa goriyo ayaane goorayaan hadhuubka u cushaa goriyo ayaane geediga horseed kama horrayn guriyag leelaaye guulaamaday ku ambatay ee looga dhigay guusha gaashaankan igu soo kogiyo saan u garan waayay gudcurkaan caddada moodayaa soo gabaabsiyey
guud curkaan caddada moodayaa soo gabaabsiyay geenyadii dameerku u gebiyey gocasha ooyaysay waxay tidhi markaan gabanahaa guriga hoos joogta iyo maanta oon gabadh noqday oo guud ka dabanayo uma guuxin guurinan gumeed garashadaydii ismagayno waxaynu nahay gobiyo maygaagee ninka haatan geeraarayow gaabsa hadalkaaga ninka haatan geeraarayow gaabso hadalkaaga wuxuu yidhi gamaan waysgeyaa gebi ahaantii ee ha gafine nin goba baanahaye gaabiskay dilaye garan waagi waa kaa ka baxay gurisankii hawde isagiyo galoolkii mudhaa goob ku wada yaalle anna waxaan gabaatiga u huray yaanay guu noqonee goolaaftankii hore markay yarahe guulguushay garowshiiya iyabaa ku xigay guri cayaareedee sowtaladu goobtay lahayd laguma guulaysan sowtaladu goobtay lahayd laguma guulaysan guudlow libaaxiyo dhurwaagee la wada jooga oo gorof madiid low sitiyo gudimadii ooda oo galab caraabaa ka jira gaadihiyo tuugaan gurungurcoodkiyo cunayn goolashiyo qaanka gayigeenna waa waxaan ka jirin oo gadaal yimiyee sowtaladu goobtay lahayd laguma guulaysan sowtaladu goobtay lahayd laguma guulaysan golli adhiga raacdiyo shabeel guudka ka ilaashaa iyo haramciyo weere ceelka u galay oo guraya waadaanta iyo haramcad soo guuliyayo guri u oodaya gayigeenna waa waxaan ka jirin oo gadaal yimiyee sowtaladu goobtay lahayd laguma guulaysan sowtaladu goobtay lahayd laguma guulaysan masgalaalan good iyo abees ganaya waabayda iyo geesh caruuro hurdada goob u wada hoyda guddi habar dugaagoo maxkamad gaaro wada haysta oo dhidar guddoonsha u yahay oo dadu garqaadaya gayigeenna waa waxaan ka jirin oo gadaal yimiyee sowtaladu goobtay lahayd laguma guulaysan sowtaladu goobtay lahayd laguma guulaysan gabbal dhacay wadaad gudahayo guura bahaleeya oo guuldarraystow kufriga galaya hooygiisa gayigeenna waa waxaan ka jirin oo gadaal yimiyee sowtaladu goobtay lahayd laguma guulaysan sowtaladu goobtay lahayd laguma guulaysan galoof caano laga soo lisay oo gaawe laga buuxshay oo gacalkii wada kaafidiyo gabanadii beesha gayigeenna waa waxaan ka jirin oo gadaal yimiyee sowtaladu goobtay lahayd laguma guulaysan sowtaladu goobtay lahayd laguma guulaysan galow iyo galaydh ba isku dilay gobolladii qaaree gorgorradantu ku gaba wadhay in laga golroonaaday gayigeenna waa waxaan ka jirin oo gadaal yimiyee sowtaladu goobtay lahayd laguma guulaysan sowtaladu goobtay lahayd laguma guulaysan gabno naasa weyn bay bulshadu godolka dhowraane marse hadday dhallaankii gabtay oo nirigti gaajootay in la gadiyo horu gowracbay galabta joogta gabaygaasi halkaasuu inoogu dhammaaday goolibaadh marka ereyadaas
waa wax wada bilcagsiya oo maaragtay dee in waliba wuxuu kala bixi karo ha kala baxo waxa weeye dee kulle gabaygaasi waa gabay macno ballaaran ku fadhiyaan filayaa goolibaadh marka waa nin iyo markaa dee intuu markaa ka furfuran karo ama uu ka fahmi karo waana gabay aad u qiimo badan baa filayaa qof kasta markuu fiirsado wax badan uu kala bixi karo waxaynu soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenna waxaynu ku soo afmeeri doonaa gabay kale oo la yidhaahdo jahawareer kolley jahawareerku dee sida macnihiisaba ka muuqato wax markaasi la fahmi waayo dhan alla dhan u socdo abwaanka markaasi ayaa halkaa inagu sii anbaqaadi doona bismi illah alxamdu lilah gabayga aan ku xigsiin doonno haddii alla qadaro waa gabaygii jahawareer jahawareer waxaan malaynayaa markaan ereyga dadku iga maqlaan dee waxaa loo qiyaasan karaa un xaaladda soomaaliyeed sooma guud ahaan jahawareerka soomaaliya ku jirto marka waad og tahay oo dee reer waliba calan yar buu samaystay calan yar buu meel ka taagay oo leeyahay dowlad baan ahay xuduudo cusubna hadda soomaali baa loo kala samaynayaa oo loo kala jexjexo inagoo ku yaraba khaati ka joognay waxaad moodaa arrimaheenna ama ay tahayba dee taladaas inay tala cadow tahay inaanay tala soomaaliyeed ahayn marka anigu axmed ahaan waxaan garaadsaday markii ay soomaaliya dowladda noqotay xorowday yacni odhan maayo waynu wada xorownay jir ahaan baynuu xorownay dee gumayskii bay naga tegay laakiin maskaxaanu maynaan xoroonin ilaa hadda maskaxaanu maynan xoroobin marka xilligaas iyadoo aanu markaa dee aan raad qaadahay baa dowladnimadaasi dhalatay markaa dee waxaan u garaadsadayoo aan ku kacaamay soomaaliya oo hal dowla ah oo hal madaxweyne iyo hal ra-iisul wasaare leh oo hal baarlamaan iyo hal ciidan leh maantana waxaan joogaa iyadoo toban dowladoodoo yaryaro leh oo meelo waddamo shisheena laga xukumo laga maamulo marka gabaygani sababtaasi ayuu u dhashay ka dhashay mar hore ayuu markaa gabaygani ahaa baan filayaa aan iska gudagallo ka gayoon mayno fasiraadda iyo howlahaasi marka waxaan isku dayayaa inaan labadii kooxoodee isku keen haystay dowladdii milatariga ahayd ee soomaaliya ee milatariga ahayd aynu iska garanayno ad adeegeeda iyo qallafsanaanteeda iyo askarteedii ayuunbaa dee isku keen qabsatay soo ma ahayn jabhadihii markaa jabhadaas samaysmay jabhadu markay samaysmeen dowladdiioo markaa lagu eedaynayo iyo qaraabakiil lagu eedaynayo ayaa kuwii kale jabhadaana iyana qabiil bay usii baaqeen sdf baa u horreysay snm baa ku xigtay waa sii socotay us baa ku xigtay 100 magacoo yaryaroo wada magac soomaaliyeed lahoo qabaa'ila baa haddana ka dambeeyey adugu waxay ka dhashay waynu isla garanaynaayo waxaan isku dayaa inaan labadii qolo u cadaalad sameeyo oo kuwan wax ku kalifay jabhadiinta iyo dowladdii dictatorka ahayd hawsheedii inaan iskarab dhigo waaya xalay juubihii dhacay markaan jiifka qaban waayey xalay juubihii dhacay markaan jiifka qaban waayey jilaashinkii waxaan fadhiyey goob jadeen badanee jawigan ka faalloonay iyo jaha wareerkii jawigan ka faalloonayo jaha wareerkii joomi waxaa iga jaray oo jiidhkiiga gooyey jiritaankii soomaalidan jeexna laga haynee jilbis waliba jeedhuu suntaday jijinta u rogay jilbis waliba jeedhuu suntaday jijinta u rogaye jirjirada adduunyada waxaa sabiijalaadaya jaqaaqdoodu waa ii baxdaa jiidhka waa beriye jambaqiyo wixii jilicsanaa looma jiidhnaxoy
jambaqiyo wixii jilicsanaa looma jidhnaxoe haddaanse jamacu iimaam lahayn jaais noqon waayee jaha gudubka adhaxdeennan jaban jaaniska hallaabay jabadbaan ka raacdaynayaa jahoradeeni jabad baan ka raacdaynayaa jahoradeeniye dad isjecel gacmaa wada jiraa jabiya qayrkoode jamhuuriyaddu waagay jirtee jamhuuriyaddu waagay jirtay ee geesu wada jeeday ha iska jidhif badnaatee intaan hiilka lagu jiidin jeeraaradii hore raggii joogay baa garan ee maantana jambo baynu nahay jaabajaaba ahe maantana jambo baynu nahay jaabajaaba ahee jiridii gudmaa lagu jaray ee jidibka loo qaatay bal inay jalleecaan bulshadan jidhidhicoon weyday jiradan ka daaweynayaa jiilka soo kacay jiradan ka daaweynayaa jiilka soo kacay jabhadii la eed iyo sharkii jiibta loo tumayee jid qalloocan bay nagu fureen oo jariimadahee waa siceeb jahligu leeyahayoo joogay weligii waa ceeb jahligu leeyahayoo joogay weligii haddaanse taliskii jawr falin qabiil lama jeclaysteene misna lama jikaareen hadday xaqa ku joogaanee jaariga qabiilkiiyo dulliga uma jibooteene jaariga qabiilkiiyo dulliga uma jibooteene awrkii jaguugihii haddaan keena lagu jiidin jeegada ma hogaamiyo sooma joogsado ee jirabiyo dhib baa lagu raraa juda geedigay jirabiyo dhib baa lagu raraa juuda geediga ee jalow iyo junaaqii markii laysku wada jiidhay ey nimankii jaafaa jirqeen jiilka lagu giijay waxay jala butaysaba marbay jiidhay miinada ee jaga doonadii sow waxmaar nooma gelin jeebka jeega doonadii sow axmaar nooma gelin jeebka u jiciirtay aakhiro raggii jawhartaahayee jaran jaradu say ula duntiyo jaa-ifada gaadhay waxbayaan jibaadkiyo wixii jiray ka sheekaynee jaajuustigrey iyo colba jooga goon yahayee jiri iyo jimbay nagu dhaleen jaanna waa xigayee jiirtiyo jarkii laga dhacay weli ku joogtayee jamiyaa ka weyn sow waxmaar looma gelin jeebka jamiyaa ka weyn sow waxmaar looma gelin jeebka qarda jeexa jaaheenna guban jaaris wada dooxaa jifoo dirirta jiidaa isnacay gaala kala jiito jilbahanu wada haysaniyo juuca nagu bahayn soomaali kala jeedlatayo jees baa dhanu guuray oo xabashi jeermaanuyo laga jawaab qaato jamiyaa ka weyn sow waxmaar looma gelin jeebka jamiyaa ka weyn sow waxmaar looma gelin jeebka gumaysigan jina naga xidhay ee jaaska nagu dheela ee mudanihii juuq yidhaa jeedalka u haysta jubba kuma caweyn jirin markuu janankii noolaayeen sidii jiirintuu dabinku jiro jiiqda damin waayey jibsiin weliba jeel lagu dabray jiida ka hayaanee jamiyaa ka weyn sow kufaar looma gelin jeebka
jeeb miyaa ka weyn sow kufaar looma gelin jeebkan jeeb miyaa ka weyn sow kufaar looma gelin jeebka jeeya hargeysa iyo sool jiqiladii awdal badda jiidan juudiga berbera jinowgii boosaasoo jab miyaa ka weyn sow xamaar looma gelin jeebka jawaan lacaga sow ma jaro jeebka kuma qaato jawaan lacaga sow ma jaro jeebka kuma qaato jadeenkiyo kulaylaha jiriyo dhaxanta jiilaalka jicsin kama helaan maatada bacadka joogtaaye iyagoo jidhama arkaa juuda lahayaaye majisya jawaab yow hayo ijid bixinaya majisya jawaab yow hayo ijid bixinaya jiljilada garow iyo galmudug jeexa balad weyne jaaka bakool iyo halkuu joogi jiray geelu jab miyaa ka weyn sow xamaar looma gelin jeebka jilib iyo kismaayo iyo gado webiga jiinkiisa jamaama iyo labadii jubbiyo jaanibyada xeebtaa jab miyaa ka weyn kinya sow jeebka kuma hayso janaale iyo jawhar iyo xamar xalanaya jooga jalfista iyo jeeraarad iyo jibinta iyo atuura jamaahiirta yaa maamulo talada jaangooya jumlad kale haddaan faaqido oo soo jimbacadooda isticmaarkusuu noo jarjaray jeerkii nala boobay jidh kuway dubaxsha markaan sii jimcimicooye jigjigiyo wajeeriyo intaan jararu baaqaayay aan jabuutay lahaa jalahayay kaalay maantana jabkii soo hadhaa muranka joogaaye maantana jabkii soo hadhaa muranka joogaaye allow yaa xuduud ahan jiniyo danaga jiida allow yaa shacbigu waa jilcaye geesuu wada jeestaa allow yaa halbowlahan jarjaraan joojin kara dhiiga allow yaa halbowlahan jarjaraan joojin kara dhiiga jaamaca qur-aanka iyo sunnu malaha jeesjeese faranjigu kuu jarabaray jameta yeelkeeda jaliilkan ku dhaartay ee wax kale malaha jeelbeele marse hadday jabaar la egmado soo jimbacan mar hadday jabaar la egmado oon jawr ku falan diiday jafaqaan dhammaan wuxuu dhalaa jabiya afaadee jaxaar ku hadli maaye intaan jiimka ka higaadshay waa tale aan soo jeediye seefkumaan jarine markaa cadowga jeedaalisaan jooga garabkiina miyo idaan midnimo waa janne jimicsan oo dhowrin miidaan midnimo waa janne jimicsan oo dhowrin waa gabay aad iyo aad markaasi una ballaadhan macno fara badanna ka hadlaya dee dowladaha soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed markaa qof kastoo dhegaystana uu wax ku qaadan karo markaasi intaasi ayaynu kusoo afmeeraynaa waraysigii aanu ka qabananay abwaan axmed colaad qorane intaynu barnaamijkan iyo barnaamij kaloo lamid ah ku kulmi doonno waxaan kaga tegayaa ammaano alla iyo kulan dambe oo xiisa